guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa ka jira abaartii ugu darnayd muddo 40 sano ah waxayna soo jiitamaysay muddo 2 sano ah oo dadka iyo dunyaduba ay la tacaalayeen 6.9 ilaa qiyaastii 7 milyan oo qof ayay saameysay oo u dhiganta boqolkiiba 42 dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay barakicisay abaartaasi oo deegaanadooda ka barakicisay dad ku dhow 900,000 oo qof si ay u helaan biyo iyo baad halka 1.5 ama milyan iyo bar caruur ay la ildaran yihiin nafaqo darro ba'an inkastoo guud ahaan dalka si siman ay u saameysay haddana xogta ay dowladda federaalka ee Soomaaliya hayso waxaa ka mid ah in dhulka ay ku dhaqan yihiin xoolo dhaqatada iyo beeraleyda gobolka Baay iyo Bakool reer miyiga gobolka Gado deegaanada cadduunka ah iyo hawdka ku yaal gobolada Hiiraan Galgaduud Mudug Nugaal Sool iyo Togdheer ay abaartaasi saameysay